bismillaahi raxmaani raxiim waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid waxaan filayaa in sheekadii xiisaha badnayd ee Shule Cohen aad wax badan ka kororsatay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada sheekooyin badan baa jira oo ay dadka naga codsadeen inaan ku xijino sheekadan oo ay la wadaagno saaxiibadeena halkan ku xiran waxaan rabnaa inaan idinku wargelino annaga iyo bahda maracada tiimba inaan bilaabi doono sheekooyin taxana ah waxaa jiray sheekooyin dhowr ah oo miiska noo saarnaa hadda 3 sheeko ayay ku soo ururtay oo aan kala dooran la'nahay midba midka kale sida ay uga wanaagsan tahay saddexdaasi sheeko mid ka mid ah ayaan dooran doonaa insha allahu tacaala aniga iyo asxaabta tarjumaadaba iyo filmadaba kadibna waan idinla wadaagi doonaa isla ramadaanka dhexdiisa laakiin waxaan rabnaa inaan si gaar ah idinku wargelino sheekooyinkaasi cusub kuma soo bandhigi doona halkan maracada show sheekooyinka cusub waxaan ku soo bandhigi doonaa maracada TV oo qaybta hoose linkiga aan soo binki garayn doono haddii aad ka mid tahay saaxiibada jecel sheekooyinka sirdoonka iyo sheekooyinka kalaba hadda kadib waxaad si toos ah aad ugala socon doontaan maracada TV halkaas oo aan kusoo gudbin doono taxanayaasha maalmo kadibna waxaan bilaabi doonaa taxanaha cusub si inta bisha barakaysan ee Ramadaan sida nooga barateen aad taxanayaal aad u heshaan haddii aad ku qanacsan tahay daawashada sheekooyinkaasi halka ayaad kala socon doontaan maracada TV waana kaga mahadcelinaya insha Allah taala sida wacan ee aad mar walba nagu dhiirigelisaan barnaamijyada kala duwan ee halkan aan ku soo gudbino 3 sheeko oo xiiso badan ayaa hadda miiska noo saaran marka aan si fiican u sii falanqeyno mid ugu wanaagsan ayaan idin doori doonaa oo aan si taxana ah idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyinkan annagoo xitaa kula wadaagi doona casharro muhiim ah oo sirdoonka ku saabsan oo hadda tarjumaadeeda iyagana ay noo socdaan oo aan kaga mahadcelinayo saaxiibkii Cabdiraxmaan oo sheekooyinkaasi tarjumaya waad mahadsantahay mar kale waxay noo balanaa maracada TV iyo maalin ama 2 maalin kadib oo ay noo bilaaban doonaan taxano cusub insha Allah taala mahadsanid